kulanti wacan daawadayaal meel walba dunida ka joogtaan halkani waa warsida TV qodobada wararkaygana waxa ugu waaweyn dowladda federaalka oo qiratay in lagu qasbay heshiiskii ay la gashay mucaaradka hubaysan ee jooga Muqdisho beesha caalamka oo ra'iisul wasaare Roble hordhigtay shuruudo adag oo la xiriira hanaanka qabsoomida doorashooyinka Soomaaliya dowladda Mareykanka oo degdeg ugu yeertay safiirkeeda Soomaaliya kuna baaqday inuu soo gudbiyo liiska cidda diidan qabsoomida doorashada Soomaaliya qorshaha dowladda federaalka kadib ka bixitaanka ciidanka badbaado qaran ee Muqdisho oo la ogaaday dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo dib u soo celiyay xiriirkooda diblomaasiyadeed madaxweynaha maamulka Puntland oo wafdi ka socda hay'adda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa kulan kula qaatay Garowe qodobadaas iyo qodobo kale oo xasaasiyad wararkayga ku dheehan doontaan haddii aan la idmo intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan dowladda federaalka ayaa qiratay in lagu qasbay heshiiska ay la gashay mucaaradka hubaysan ee jooga Muqdisho dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in cadaadis maaliyadeed oo dibadda ah uu ku riixay in dib u eegis ay ku samayso habka loo wajahayo nidaamka doorashooyinka dalka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa sheegay in haddii aysan dhinacyada Soomaalida heshiis ka gaarin doorashada ay adkaan lahayd in la helo taageerada miisaaniyadeed ee dowladda dhexe ay ka hesho beesha caalamka waxa uu waraysi uu bixiyo ku sheegay in ra'iisul wasaaraha uu kulan la qaadan doono bisha July wakiilada beesha caalamka xilligaas oo la shaacin doono muddada ay dhacayso doorashada Soomaaliya ee baarlamaanka iyo madaxtooyada wasiir Cabdirasaaq ayaa xusay in qayb kamid ah Muqdisho ay ku sugan yihiin ciidamada beeleed u abaabulan oo ka amar qaata mucaaradka kuwaas oo halis galiyay madaxtooyada Mr. Cabdirasaaq ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan ku filnayn dakhliga gudaha si loo helo ama loo fasaxo kaalmada beesha caalamkana ay qasab ku noqotay in dowladda dhexe ay ka fiirsato go'aankii ay hore u qaadatay isla markaana ay la fariisato mucaaradka dowladuna ay ka laabato go'aankii muddo kordhinta ahaa waxa uu rajo ka muujiyay in midowga Yurub ay fasaxi doonaan dhaqaalihii hakadka la geliyay wixii ka dambeeyay markii uu dhamaaday muddo xileedka farmaajo waxa kale uu qiray in mushaarka ciidamada uu yahay kan ugu muhiimsan haddii aysan helin ay suurtagal tahay in xasilooni darrada magaalada caasimadda ay kororto taas oo qalalaasa dhinaca amniga galin karta caasimadda wararkayga ayaad wali la socotaan daawadayaal beesha caalamka waxay shuruudo adag oo la xiriira qabsoomida doorashooyinka hordhigtay ra'iisul wasaare Roble tendada afisyooni ee magaalada Muqdisho waxaa ku shiray ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo wakiilada beesha caalamka warbaahinta ayaa heshay dukumiinti ay ku cad yihiin qodobada ka soo baxay shirkaasi waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ee wakiiladaasi iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta isla mayl dhigeen kamid ahaa in mudnaanta koobaad la siiyo in ciidanka militariga laga saaro magaalada Muqdisho sida ugu dhaqsiyaha badan heshiiskii 17 September 2020 la dhameystiray laakiin u baahan horumarin iyo wax ka bedel iyo in dowlad goboleedyada loo gudbiyo qorshaha iyo soo jeedinta kulanka ka hor si degdeg ahna loogu baahan yahay jadwalka shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya miisaaniyadda waa in qarashka soo galo dowladda uu noqdo mid hufan lacagta oo dhami waa inay ku jirtaa qasnada dowladda iyadoo booqashada wakiilka qadarna uu keenay tuhum fara badan oo dhanka mucaaradka ah dowladda UK safiirkeedu waxa uu sheegay inay ka walaacsan yihiin rabshadaha Muqdisho ka dhacay isbuucyo la soo dhaafay ay tahay in si dhaqsi ah loogu qabto doorashooyin wada hadalka doorashaduna ma fashilmi karo sababtoo ah cawaaqib xumada ka dhalan karta ayaa ka weyn iyo amni xumada ay Muqdisho wajahayso waxa la isku soo qaaday in loo baahan yahay guddi kormeera wada hadalka doorashooyinka balse Mareykanka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka caawiyo Soomaaliya kormeerka doorashooyinka amniga doorashada ciidanka AMISOM iyo kuwa amniga Soomaaliya ayaa ka wada shaqeyn doona si doorasho hufan ay dalka uga dhacdo qorsheynta nidaamka doorashooyinka waa inay bilaabataa bishan May ra'iisul wasaarahuna waa inuu hogaamiyo arrimaha doorashooyinka AMISOM ayaa taageeri doonta arrimaha doorashada taliska booliska dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalkuna waa inay qayb ka noqdaan wada hadalka ammaanka doorashooyinka qodobadaas iyo kuwa kale ayay beesha caalamka hordhigeen ra'iisul wasaare Roble waxaanay ka codsadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan uu dardargaliyo wararka warsida ayaa daawadayaal wali la socotaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la ogaaday qorshaheeda kadib ka bixitaanka ciidanka hubaysan ee jooga Muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa faahfaahin dheeriya ka bixiyay heshiiska lagu gaaray magaalada Muqdisho ee lagu soo afmeeray qalalaasihii ka dhashay muddo koror
kororsiga. Al-Cadaala ayaa sheegay in markii ay ciidamada badbaado qaran ka baxaan magaalada Muqdisho ay ciidamada dawladda si toos ah ula wareegi doonaan amniga caasimadda isla markaana la guda galayo arrimaha doorashooyinka. hase yeeshee ra'iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in xukuumadda ay wado qorshe ay ku dhisayso ciidamo khaas ah oo fuliya amniga doorashada kuwaasoo loo wada dhan yahay dhexdhexaadna ka ah arrimaha la isku hayo. ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaa intaa ku daray in ciidankaasi ay ku shaqayn doonaan xeyndaab sharci ah uuna dhisidooda kala tashan doono dhammaan saamilayda siyaasadda. dhinaca kale Al-Cadaala ayaa sheegay in heshiiska ciidanka badbaado qaran looga saarayo Muqdisho ay ka soo shaqeeyeen guddi uu dhowaan magacaabay ra'iisul wasaare Rooble oo isugu jiro xubno taabacsan mucaaradka iyo dawladda oo xil iska saartay. wuxuu hoosta ka xariiqay in heshiiska ujeedkiisu ugu weyn ahaa sidii dib loogu soo celin lahaa deganaanta xaaladda amni ee caasimadda maadaama ay muddooyinkii dambe ciidamo iska soo horjeeda isku hor fadhiyeen xaafado ka mid ah Muqdisho. sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in qodobada ugu cawaaqibta culus uu heshiisku ka mid ahaa in dhinacyada ka soo horjeeda dawladda aanay ciidamada u adeegsan siyaasadda. shirkii toddobaadlaha oo ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir xilli ciidamo iska soo horjeeda halka laga dareemayo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cumar Finish ayaa shirkii toddobaadlaha ee gobolka Banaadir shir gudoomiyay. shirkan ayaa looga hadlay dardargelinta howlaha nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada Muqdisho maadaama lagu guda jiro xilli roobaadyo isla markaana maalmo ay naga xigaan maalinta ciidda Soonfur. sidoo kalena shirka ayaa looga hadlay sare u qaadida dakhliga dawladda hoose ee Xamar. mas'uuliyiinta degmooyinka qaar ayaa looga dhageystay warbixino looga hadlayo amniga iyo arrimaha bulshada degmooyinka ay maamulaan. waxaa la isku dardarwaliyay adkeynta amniga dalka si aan loo qalqalgelin amniga caasimadda. kulanka waxa uu ku soo beegmay xilli weli aan la xalin ismaandhaaf u dhaxeeya ciidamada ilaaliya xarunta maamulka gobolka Banaadir iyo ilaalada gudoomiye Cumar Finish iyadoo dhowr jeer lagu sigtay in lagu dagaalamo halkaasi. warsida TV ayaa daawadayaal wali la socotaan. dawladda Mareykanka waxa ay u yeertay safiirkeeda waxaanay ka dalbatay inuu degdeg u soo gudbiyo liiska cidda diidan doorashada Soomaaliya. dawladda Mareykanka ayaa cadaadis xoogan ku saaraysa hogaamiyaasha Soomaalida qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah waxayna taa beddelkeeda Mareykanka damacsan yihiin in tallaabo ay ka qaado dadka qatarta ku ah qabsoomidda doorashada Soomaaliya. safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Yamamoto ayaa looga yeeray inuu yimaado magaalada Washington ee dalka Mareykanka si wax looga weydiiyo xaaladda Soomaaliya gaar ahaan dadka qatarta ku ah qabsoomidda doorashada. Yamamoto ayaa sheegay shir ay yeesheen beesha caalamka iyo ra'iisul wasaare Rooble in loogu yeeray caasimadda Mareykanka si uu warbixin uga siiyo dawladda dadka ka shaqeynaya dib u dhigista doorashooyinka Soomaaliya. safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ayaa sidoo kale ka digay in dib loo dhigo doorashada Soomaaliya waxa uu cadeeyay in dawladda Mareykanka ay diyaar u tahay inay taageerto qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda Soomaaliya. dawladda Mareykanka ayaa horey ugu hanjabtay in tallaabooyin ay ka mid yihiin xayiraad ay ku soo rogi doonto hogaamiyaasha Soomaalida ee loo arkayo inay qatar ku yihiin ammaanka Soomaaliya kana soo horjeeda inay doorasho ka dhacdo dalka. dawladaha Soomaaliya iyo Kenya oo dib u soo celiyay xiriirkooda diblomaasiyadeed. dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u soo celisay xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya dawladda Kenya. wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo shir jaraa'id warbaahinta kula hadlay ayaa xaqiijiyay in dawladda Soomaaliya ay soo celisay xiriirkii kala dhaxeeya Kenya. Al-Cadaala ayaa sidoo kale sheegay in soo celinta xiriirka labada dal ay gacan weyn ka geysatay dawladda Qatar oo si aad ah xukunka farmaajo u taageerta. Al-Cadaala ayaa sidoo kale qiray in madaxweynayaasha labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ay abaal weyn amiirka Qatar uga hayn doonaan soo celinta xiriirka labada dal oo isagu ka shaqeeyay inay isku soo dhawaadaan. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa magaalada Garowe kulan kula qaatay xubno ka socda hay'adda Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa. madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Siciid Cabdulaahi Danni ayaa xafiiskiisa Garowe ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay madaxa xafiiska qaramada midoobay ee deegaanada Puntland. kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa looga hadlay guud ahaan Puntland gaar ahaan wada shaqeynta hay'adda qaramada midoobay iyo maamulkaasi. sidoo kale intuu kulanku socday waxaa la isku soo hadal qaaday sidii hay'adda Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ay uga geysan lahayd caawin dadkii uu saameeyay roobabka ka da'ay Puntland. si kastaba kulanka waxa uu ku soo aadayaa xilli Puntland ay dhawaan qayladaan u dirtay hay'adaha caalamiga si gurmad degdeg ah loola soo gaaro dadka tabaalaysan ee ku sugan deegaanada maamulka Puntland. maxaa keenay dib u dhaca qabsoomidda imtixaanka dugsiga sare ee Soomaaliya?
war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddo 7 ah dib loo dhigay imtixaankii shahaadiga ee dugsiga sare ee dalka oo lagu waday inuu bilowdo 22 May. wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay kula wadaagtay dhammaan bahda waxbarashada gaar ahaan mas'uuliyiinta dalladaha maamulayaasha dugsiyada ardayda iyo waalidiinta in imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare uu ku yimid dib u dhac kooban oo ah muddo isbuuca. dib u dhaca ayaa ka yimid culeysyada soo kordha maalmihii la soo dhaafay taasoo saameysay ardayda ayay wasaaraddu garowsatay in lagama maarmaan ay tahay in ardayda la siiyo waqti dheeri ah si ay isugu diyaariyaan imtixaanka. haddaba wasaaradda iyadoo aan baqaadaysa dib u dhacaasi ayaa waxa ay la wadaagtay dugsiyada xilliga la qaadi doono imtixaanka 2020-2021 May ilaa 2 Juun 2021. sidaa daraaddeed wasaaraddu waxay ku boorinaysaa dhammaan ardayda ka qaybgalaya imtixaanka inay waqti siiyaan muraajacada casharrada si ay ugu guuleystaan imtixaanka ayna u helaan natiijooyin ku habboon dadaalkooda. wasaaraddu waxay u rajeynaysaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed nasiib wanaagsan iyo mustaqbal horumar leh. guud ahaan warkii oo daawadayaal kala socoteen Warsida TV waa inaga intaan warkan warka xiga kulmi doono waxaan idinkaga tagay sidaa iyo nabadgelyo Ramadaanul Kariim.